kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka telefishinka BBC ee London qodobada wararka caalamka ugu waaweyn baadariga Pope Francis ayaa ka degay Masar halkaasi oo xaalad degdega dalku ku jiro kadib weeraradii lagu qaaday kaniisadaha Kirishtaanka iyadoo qarka uu saaran yahay Donald Trump 100 maalmood xilligii uu xafiiska qabtay waxaanu tiro ahaan eegi doonaa wixii uu qabsoomay waxa kale oo aan idiin haynaa dukaanla Soomaaliyeed oo ku nool Koonfur Afrika oo ka warramaya weerarada ajnabi nacaybka waxaanu ku bilaabaynaa dalka Masar halkaasi oo baadariga ugu sarreeya madhabta Katoliga Pope Francis uu ku tagay boqosho 2 maalmood baadariga ayaa rajaynaya inuu dhiri galiyo wada hadallo dhex mara muslimiinta iyo masiixiyiinta ammaanka ayaa la adkeeyay waxaana boqoshadiisa ay ku soo beegantay toddobaadyo kadib markii 2 kaniisadood la weeraray laguna dilay 49 qof wadanka ayaa la geliyay 3 bilood oo xaalad degdeg ah waa muuqaalo murugale mar kale waxaa halkan lagu aasayay dadkii dhintay kooxda sheegata dawladda islaamiga ah ayaa waxay sheegeen in ay iyagu yihiin kuwa ka dambeeyey weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday dadka masiixiyiinta ah Greg Spakhum ayaa waxa uu baroordiiqayaa wiilkiisii Ibrahim oo uu sheegay inuu ahaa curadkiisa isla markaana uu ahaa ilmihii ugu jeclaa dawaarlahan yar ee uu lahaa ayay labadooduba ka wada shaqayn jireen waxa uu yidhi Ibrahim waa kan aniga ayaa ahayd inaan hordhinto oo uu aaso laakiin ma ahayn buu inay sida kale u dhacdo oo isagii aan anigu ka dambeeyo neefta ayaa dhibaysay kadibna waxay ku duubeen maro waxayna u qaadeen meesha meydka lagu dhaqo indhahaygan ku arkay qoyska Naziim ayaa iyaguna weerarkaasi waxa ay ku waayeen 3 ka tirsan reerkooda oo uu ku jiray Baashoy oo ahaa isagu 18 jir walaashii Maariyan ayaa sheegtay in iyaguna ay filayaan in markooda la soo weeraro haddii xaalku uu sidan sii ahaado oo aanan helin xuquuqdeenna xaqiiqdii wax mustaqbal ah ma lihin waxaa noo dhaanto in aan dhimanno tan iyo markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday kiniisadahaasi axaddii ayaa iminka waxaa aad loo adkeeyey xagga ammaanka dawladda ayaa rabta inay dadka tusto sida ay ammaanka dadka laga tirada badan yahay ee masiixiyiinta ah u ilaalinayso laakiin dad badan baa isweydiinaya waxa ay dawladdu u adkeyn weyday ammaanka goobaha dadka masiixiyiintii ku cibaadaystaan waxaana ay dad badan ka baqayaan in marka iminka xaaladdu ay ka baxdo wararka ee la ilaawo in dabeetana ciidamaduna ay ka tegi doonaan goobahaasi iminka ay aad u ilaalinayaan iyagoo u ducaynaya dadkii ka dhintay ayaa qibdiyiinta dalkaasi Masar waxa ay ku dadaalayaan in ay xajistaan diintooda ay haysteen muddada dheer laakiin qaar badan ayaa iminka ka niyad jabay madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Asiisi oo ay markii hore u arkayeen nin geesiya oo iyaga la safan sanadkan in ka badan 40,000 oo muhaajiriin ayaa ka gudbay badda Mediterranean-ka marka laga reebo Suuriya iyo Afghanistan Nigeria ayaa ah wadanka saddexaad ee muhaajiriinta ugu badani ay ka soo galaan Yurub Soomaali badan ayaa soo gala safarkan halista ah dadkan oo aan badda ka cararin inta badan ka cararin colaadda ayaa u badan dhalinyaro shaqo doona BBC-da ayaa booqatay magaalada Benin oo ah halka ay muhaajiriinta badani safarka ka soo bilaabaan magaaladan qadiimiga ah ayaa waxay caan ku ahayd soo saarka sanamyo naxas laga sameeyey laakiin maanta Benin ayaa waxay u jeesatay dhoofinta shay kale kaas oo ah tahriibka dadka xarunta suuqooda ganacsi ee ugu weyn waa Nigeria halkaas oo ay kumanaan kun oo qof ka soo bilaabaan safar khatar ah oo ay ku aadayaan Yurub marka ay Liibiya soo gaaraan Yurub iyo nolosha ay doonayaan waxaa ka xiga hal dooni oo kaliya Kevin Imation ayaa ka mid ahaa dadkan tahriibka ah safarkan ayaa waxaa ku weheliyey walaashii Augustine waxaa lagu khasbay inay fuulaan 2 dooni oo kala duwan muddo yar kadib ayay la kulmeen dhibaato weyn Kevin ayaa ka badbaaday masiibadan laakiin Augustine doontii ayaa la degtay waxay ahayd kalkaaliso caafimaad iyo arday waxay ka shaqayn jirtay farmashi iyo isbitaal mushaharkeedu ma ahayn mid ku filan marka ay ka bixiso dugsiga gabadheeda hooyo ma shaqayso sidaa awgeed waxaan go'aansannay inaan tagno
inta badan dadku halkan ayay safarka ka bilaabaan haddii wax kasta si habsami leh ugu dhacaan 2 toddobaad keliya ayay ku gaadhaan Yurub. ninkani wuxuu la shaqayn jiray koox dadka tahriibisa. Friday Ugahodarow ayaa wuxuu noo sheegay inuu darsan Nigeriana u tahriibiyay Yurub. safarkaygii u dambeeyey liibiya waxaan kula kulmay dhowr jaamici sideyda oo kale mid walba wuxuu ii sheegay jaamacaddii uu soo dhammeeyey haddii aan shaqayn lahaa ilaa markaan iskuulka dhammeeyey uma malaynayo inaan geli lahaa safarkan oo kale oo aan isu dhiibi lahaa muqallas. inkastoo ay og yihiin khatarta tahriibka haddana dad badan ayaa diyaar u ah inay naftooda halis geliyaan. maanta xaaladda dadka Nigeria waa mid adag laakiin soo jiidashada dhaldhalaalka Yurub ayaa ah mid xoog badan. Faafaahin dheeraad ah oo ku saabsan warbixintaasi iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa boggeena bbcsomali.com adiga oo ka galaya moobilkaaga. bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caalamka ee maanta. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in caalamku dejiyo qorshe cusub oo ku qasbaya Kuuriyada Waqooyi inay joojiso nuclearka. Mr. Tillerson ayaa shir gudoominayay golaha ammaanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha oo xulafo la Kuuriyada Waqooyina waxa uu sheegay in xalku uu noqdo mid nabadeed. haweenka culimada ee Indonesia ayaa soo saaray fadwo diini ah oo la xiriirta guurka gabdhaha yaryar. culimadan ayaa ku booriyay dawladda in ay kor u qaado da'da gabdhaha lagu guursan karo oo halkii 16 ahayd 18 jir laga dhigo. Indonesia oo dalka ugu ballaaran muslimiinta ayaa qaba tirada ugu sarreysa ee gabdhaha da'da yar lagu guursado. madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa shaqada ka eriyay ku dhawaad 10,000 oo shaqaalaha dawladda kuwaasi oo haystay shahaadooyin waxbarasho been abuur ah. waxa uu ka jawaabayay warbixin dawladdu ay soo saartay oo la xiriirtay shahaadooyinka beenta ah. sabtida ayay Donald Trump u buuxsamaysaa 100 maalmood oo uu yahay madaxweyne iyo taliyaha ciidamada dalkaasi. heerka taageeradiisa ma gaarsiisana meel fiican waxaase saadaashu ay muujinaysaa in badi intii jeclay Trump ay weli doonayaan. sida laga hayo madaxweyne Trump shaqada madaxweynenimo uma fududayn sidii uu u malaynayay bal aanu milicsano madaxweynenimadiisa ilaa hadda waxa uu qabsoomay. boqolkii maalmood ee la soo dhaafay ayaa madaxweyne Trump waxa uu hal ballan ku tagay maxkamadda sare. xaakinka muxaafidka Neil Gorsuch waxa loo dhaariyay kursigaasi oo bannaanaa in ka badan hal sano. 2 qof oo ka mid ah qoyskiisa ayaa ka tirsan kooxda ugu sarreysay la shaqeeya madaxweyne Trump. wiilka uu sadaga u yahay ee Jared Kushner ayaa u ah la taliya sare. madaxweynaha cusub waxa uu amray 3 howlgal military oo waaweyn. ciidamada gaarka ee Mareykanka ayaa weeraray Yemen. waxa kale oo gantaalo lagu weeraray garoon ay leedahay dawladda Suuriya. Afghanistan waxa bamkii ugu weynaa lagu riday xarun ay leeyihiin kooxda isugu yeerta dawladda Islaamka. waxa 4 qof loo dalacsiiyay jagooyin muhiim ah. sidoo kale waxa shaqadii laga saaray dad uu ku jiro la taliyihii amniga qaranka Mike Flynn, la taliye Steve Bannon. waxa laga saaray golaha ammaanka qaranka ee aqalka cad. taniya markii uu xilka qabtay madaxweynaha waxa uu la kulmay 10 hogaamiye oo ka socda dunida. mid mooye dhammaantood wuu gacan qaaday. taniya markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Trump wuxuu ciyaarta golfiga dheelay 13 jeer. walow waagii hore madaxweyne Obama aad loogu dhaliilay inuu waqti badan ku lumiyo ciyaartan. 17% ka mid ah codbixiyaasha Mareykanka ayaa taageeray qorshaha cusub ee barnaamijka caafimaadka jamhuuriga ee lagu bedelayo kan Obamacare. madaxweyne Trump ayaa ku sheegay barnaamijkan caafimaad ee Obama inuu yahay mid masiibo ah. madaxweyne Trump waxa uu saxiixay 26 qaraar madaxweyne tan iyo markii uu la wareegay xafiiska. waxaana ka mid ah in dib loo eego barnaamijyadii muhiimka ah ee madaxweyne Obama iyo sidoo kale xayiraad socdaal oo lagu soo rogay dalal muslim ah. bartamihii bishan Abriil madaxweyne Trump waxyaabihii uu saxiixay ayaa dadka 40% waxay u arkeen wax fiican, taas oo ka yar taageeradii 3 madaxweyne ee ka horreeyay arrimaha noocaas ay ku heli jireen. madaxweyne Trump wuxuu ka qoraal batay warbaahintii caadiga ahayd oo wuxuu 900 iyo dheeraad fariimood ku qoray boggiisa Twitter-ka. badankooduna waxay ahaayeen hadallo kulul oo uu habeenkii soo qoro. waa hadal ka soo baxaya madaxweyne nooc gaar ah. sanadihii ugu dambeeyay Soomaali badan oo ka qaxday dagaalada Soomaaliya ayaa degay Koonfur Afrika. waxa inta badan ay bilaabeen ganacsi iyo dukaamo ay ka furtaan goobaha dadka saboolka ay ku nool yihiin. laakiin mararka qaar ayaa lala beegsadaa weeraro ajnabi nacayb ah. haddaba meel u dhow magaalada Pretoria ayaan maalin la qaadanay dukaanla Soomaaliyeed
iyo qoyskiisa oo ka hadlaya noloshiisa iyo rajada mustaqbalka ay ka qabaan. aniga magacayga waxaa la yidhaha maxamuud geedi ciire waxaana ka imid Soomaaliya Muqdisho. Soomaaliya waxaan ka soo tegay 2008 xilligaasna waxaa ka jira dagaal aad u ba'an. Soomaaliya waxaa ku haray 2 gabdhood iyo xaaskayga. falilah alxamdu waxaa waaye ilaahay baa mahad leh. hadda 3 wiil oo aan dhalay ayaan wada joognaa halkan waana iska fiicana waana xamaalanaa. dukaankan anaka iskale Soomaaliya dhibaato uga soo cararna halkan nimiday. halkaana dhibaato way ka jirtaa. dukaankayga dhexdiisa ayaa xabad lagula dhiftay meesha iga dhacdana 2012 meeshan horta sideedaba dadka shisheeyaha oo dhib badan ayuu ku qabiyaa. waxaa dhacday hadda 2014 mar ayaan rarnay. sababta aan u rarnayna waxay ahayd ayagoo tiro badan oo ilaa boqolaal gaaraya ayay halkan soo istaageen. waa baqnay waana iska rarnay alaabtii. marka labaadna hadday ahayd oo 2017 bishii February iyadana 24 iyadana sidaas oo kaleentood cabsi weynaan dareennay. alaabtii waa rarnay labadaas jeer ayaan rarnay. waxay yidhaahdaan shaqooyinkaynay qaateen businesskeenay ganacsigeennay qaateen wax walba oon anagu aan ka istafiidi lahayn ayay ayagu qaateen. sidaas darteed ayay ku nacay. labada dalba dhibaato waa ka jirta laakiin haddii la fiiriyo halkan ayaa ku wanaagsan xagga nolosha sababtoo ah madfac kugu soo dhacana ka baqi maysid bam kugu qarxana ka baqi maysid. waxa wanaagsan way fara badan yihiin. sharciyaadna la siiyey waxaa la yidhi meel alla meeshaad doonayseen waddanka South Africa xora tihiin ka shaqaysta ganacsiga furta haddaad doonaysaan isbitaalku aada. rajadeedu mustaqbalka aan qabo waxa waaye Soomaaliya inay nabad noqoto ilaahayna ha ka dhigo. waana jeclaalahay maaragtay iyadoo nabad ah inaan dalkeena hooyo aan wada joogno dhammaanteena iyadoo ruuxna uu naga maqnaynin. laakiin sidaa hadda aan dareemayo ma muuqato. markana wararka ciyaaraha haddaynu eegno tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in Sergio Aguero Manchester City inuu sababay dhacdadii keentay in ciyaartii xalay laga saaro Marwan Fellaini. Fellaini ayaa kaarka cas la siiyey kadib markii ay isqabteen weeraryahan City waxaana uu noqday arrinta loogu hadal badnaa ciyaarta oo gool la'aan ku dhamaatay. Mourinho ayaa soo jeediyey waayo aragnimada Aguero inay keentay arrintaasi. annagoo wali ku guda jirna horyaalka Ingiriiska bal si kooban aanu u eegno ciyaaraha kale ee waaweyn Brito iyo bari dambe dhacaya. Sunderland oo meel hoose joogta oo aan marnaba hal ciyaar guuleysan ilaa Febraayo waxay martigelinaysaa Bournemouth. West Brom iyaguna waxay la ciyaarayaan kooxda horyaalka haysata ee Leicester. Axadana Tottenham iyo Arsenal ayaa ishaya. ugu dambeyntiina ubaxyo la yaab leh ubaxyo banaanka ka baxa ayaa buuxiyey kaymaha California waxaana iminka laga arkayaa hawada sare. ubaxyadaasi sawirro dayax gacmeedyada ayaa muujinaya laga qaaday muuqaal dhul ballaaran oo California oo ay dabooleen ubaxyadaasi. jiilaal qoyan ayaa keenay in ubax hurdi ahi oo badani soo iftiimo oo halkaasi uu ka soo baxo. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com. muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararka aanu ka shaqaynayno waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena BBC Somali Facebook. ha ilmaamin waxaad sidoo kale aniga iyo asxaabtaba nagula soo xiriiri kartaan ciwaanka Twitterka @BBC Somali. inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii caawa. habeen wanaagsan.